بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. درسنا أن تفسير كعاوح كبلا بنيا آيات لببق الصدن يكوبات من سورة بقرة كمدوي. aayadda 232 ee suuratul baqara ayuu ka bilaabanaya. waidaa dallaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna faamsikuuhunna bimacruufin aw sarrixuuhunna bimacruuf. ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala, waidaa dallaqtumun nisaa, haddii aad furtaan buu ilaahay yidhi yaa macshara rijaal, macnaha nimankii oo dhan baa lala hadlayaa dumarkiinni aad qabteen haddii aad furtaan. dalaaqaasuna ou noqdo dalaaq hal dalaaqa lagu furay ama laba lagu furay oo rajco leh, oo fabalaqna markaa ay gaarhaan ajalahunna ajashoodii, bimacnaa ciddadii waqtigay dhammaanaysay u dhowaadeen weeye. ilaa hadday dhammaato rajca dambe lama samayn kare. hadday markaa ajashoodii gaarhaan bimacnaa u dhowaadaan, ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala, fa amsikuuhunna, haysta oo soo ceshada, markaa nikaaxiinna u soo ceshaday haysta, bimacruufin wanaagna ku soo ceshada oo ku haysta weeyi, ow sarrixuuhunna, ama iska sii daayo haddii aadnan waxa weeye aan markaadnan si wanaagsan kula dhaqmaynin. hal dalaaqaad ku furtay ama laba dalaaqo ciddadiina way sii dhammaan rabtaa, halkaa uga har. haddii ay wax wanaaguhu jiraan oo maslaxa imaanaysana soo ceshada, ila ceshi baa idiin bannaani. laakiin sidii jaahiligu yeeli jiray, gabadhii waxa weeye inaan la sii dayn oo lasoo rajco loo soo ceshado, iyadoo ujeeddaduna ay tahay iyada in lagu dhibaateeyo, taa maya. walaa tumsikuuhunna ha haysanina oo ha soo ceshanina diraaran liajli diraarin, dhib daraaddeed gabadha la dhibaataynayo sidaa ha samaynina. litactaduu, si aad xadgudubtaan. waman yafcal daalika, arrintaa qofkii sameeya, faqad xaqiiqanimee dalama nafsahu, naftiisiibuu dulmiyey, dulmibuu galay. walaa tattakhiduu, ha ka samaysanina aayaatillaahi, ilaahay aayaadkiisa husuwan, jaas-jaas iyo dheeldheel aayaadka ilaha ka dhiganina. wadkuruu, xusuusta nicmatallaahi, ilaahay nicmadiisana xusa oo xusuusta weeyaan, calaykum dushiinna oo u nicmeeyey. wamaana xusuusta anzala ilaahay uu soo dejiyey oo xusa, calaykum dushiinna min alkitaabi, kitaabkii iyo walxikmati xikmad ah weeyaan. yacidukum, ilaahay waydin waaninayaa bihi, maagaas uu soo dejiye uu idinku waaninaya. wattaqullaha, ilaahay ka cabsada, waclamuu ogaada, anna allaha ilaahay bikulli shayin shay walbaba caliimun, midku cilmi badan inuu yahay ogaada. weli waxaanu ku dhex jirnaa aayaatu dalaaq, macnaha axkaamta dalaaqa ka sheekayda ayaanu weli ku dhex jirnaa weeyi. axkaamtaasu waa axkaam aad iyo aad u faa'iido badan, oo aad iyo aad uga hadlaysa qoyska iyo arrimahooda iyo macnaha ka hadlaysa weeyaan. waxaanu ka soo baxnay gabadha marka la furo ciddada ay tirsanayso, waanu soo qaadanay. waxaan kaloo soo marnay oo sidaasoo kaleeto aan soo ogaanay, dalaaqa marka uu dhaco rajcada la samayn karaahi 2 mar kama badan karo. 2 mar baa ugu badan ninku gabadhii uu qabay hadduu furo inta uu soo ceshan karo. hal dalaaquu ku furay, markaas 2 u hartay, ciddadu intaysan dhammaanin rajcay samayn karaan weeyaan. haddana hal kalou ku furay, mar ayaa u hartay, rajcuu samayn karaa. hal dalaaqaana markaa dambeeto ayuu nikaaxoodii noqonaya, qabitaankoodii noqonaya. laakiin halkaa dalaaqa u haray haddii furiinkooda uu yimaado, fa in dallaqahaa falaa taxillu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan kayra. 3 dalaaqa way kaa dhammaadeen, wax dambeoo soo ceshiyuhu ma jiraan, ilaa ay nin kale soo marto, adugu inta furto
ilaa adigii waadba kala tagteene ilaa ay inta ciddadaadii u dhammaato markaa nin kale soo guursato oo haddana ciddadiisii dhammaato mooyee ka hor maya ma kuu bannaano weeyaan. waanu soo qaadanay 3 dalaaqa gabadha marka lagu furo walow isku hal marba ninku ha ku dhawaaqee in ay tahay mas'alo lagu ijmaacay oo gabadhu ay ku furmaysa weeyaan. aayaddan darsigeenu ka bilaabanayo caawa insha allah oo aayadda 231 ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan wuxuu noogu sheegayaa aayaddan ilaahay wuxuu noogu caddaynayaa subxaanahu wa tacaala haddii gabdhihii macnaha zawjaadkiinnii aad furtaan buu ilaahay leeyihi dalaaqaasuna hal dalaaqa ou noqdo ama 2 ou noqdo ee markaa ciddadii waktigay u dhammaanaysay baa soo dhow laakiin weli ma dhammaanin 3 duhri ma dhammaanin maalan 3 duhri ilaa mar bay ciddadeedu noqonaysay waa nagii soo marnay gabadha la furay wuxuu ku furay maalan ba waxa weeye iyadoo aan xaamilan ma aha xaydna ma qabin iyadoo daahira oo aysan duhrigaas ku kulmin labadoodu ayuu furay weeyaan 3 duhri bay tirsanaysay 3 daahir noqosho oo hadba inta xayd ku dhacay daahir noqonays intaysan dhammaan buu soo ceshaday maalan ama maahane gabadha waxa weeye uur bay lahayd inta ciddadeedu soconaysa waa inta xamligaas oo jira weeyaan ama aayisa aheedoo waxa weeye gabar ka quusatay xayd oo dhanba waa hooyo waayeela oo da'da dumarka dhiigga uu ka joogsadayba gaartay weeye qaybahaasoo dhan baanu ku soo marnay marka iyadoo ajasheedii macnaha iyagoo gaaray macnaha u dhowaaday laakiin aan weli ciddadii dhammaanin haddii aad furtaan buu ilaahay leeyahay oo markaa ajashoodii ay ku dhowaadaan ceshi baa idiin bannaan soo ceshada adinkoo dhibaato u geysanaynin haddana markaa ama iskaba dhaafo ciddadu haba dhammaato laakiin marna lama samayn karo waxa weeye nin kale yay guursane kullu gooye soo cesho adigoo dhibaato inaad gabadha u geysato oo ku xadgudubto uga jeeda oo dulmiya taa iyada ma la ogolo weeyaan. maxaa yeele arrintaa horay bay dadku u samay jireen markii waxa weeye gabadha waa dalaaquna markaa cadad ma lahaa jirin waa nagii soo marnay furiin baa dhacaya hal dalaaqo ama 2 ayaa lagu furayey jaahiligii xitaa qofku sidaa buu ahaan jiray markaasuu ciddadu intaysa dhammaan buu hadba soo ceshanayaa walow dallaqahaa alfan baa la yidhi xataa kunba ha ku furee sidaas dhibkaasay gabdhaha ku hay jireen weeye shareecadu laakiin lugooyada noocaasa waa la diiday. ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala waidaa dallaqtumu nnisaa dumarkii haddii aad furtaan oo fa balaqna ay gaaraan ajalahunna ay qaarabna ay u dhowaadaan baa looga jeedaa ajashoodii macnaha ajashu waa madashii weeyaan ciddada fa amsikuuhunna haysta oo soo ceshada bimacruufin si wanaagsan oo shareecadu qabto oo dhaqan wanaagsana adinkoo ku dhaqmayo weeye oo usarrixuuhunna ama iska foofiya macnaha sii daayaba haba u dhammaato ciddadaasu dibna ha ugu laabanin bimacruufin si wanaag adinkoo ku dheehan laakiin marnaba lama ogola midaan walaa tumsikuuhunna waan soo ceshanayaa markaa baan dhibaato u geysanayaa may walaa tumsikuuhunna ha haysaninoo ha soo ceshanina diraaran liajli diraarin dhibaato in loo geysto daraaddeed maya litactaduu si aad ugu xadgudubtaan inaad usoo ceshataan oo dhibtaan ma la ogola. arrintaa qofkii sameeya oo gabadhii nikaaxii u soo celiya isagoo inuu dhibaateeyo doonaya aayaadkii ilaahayna wuxuu ka dhigtay jees oo qur-aankii ilaahay buu maqli waayey qiyaamada qur-aanka ilaahay baa la xujaytamaya oo dushiisa xujo ku noqonaya leanna nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waalqur'aanu xujatun laka ow calayka buu yidhi qur-aanku adiga ayuu xujo kuu noqonayaa ama dushaada ayuu ku noqon doonaa weeyaan. qofkii marka sidaas sameeya waman yafcal daalika arrinkaa qofkii la yimaad oo gabadhii nikaaxa soo ceshada isagoo markaa doonaya in uu dhibaateeyo oo marka dambe ay tiraa xoolaan ku siinayahay dalaaqa iga iibso sidaasuu raba inuu gaarsiiyo arrintaa qofkii sameeya faqad dalama nafsahu naftiisa wou dulmiyey dembi buu galay weeyaan cadaabti ilaahay buu u diyaar garoobay.
ilaahay wuxuu kaloo na leeyahay walaa tattakhiduu ha ka dhiganina ama ha ka yeelanina aayaatillaahi aayaadka ilaahay huzuwan jees ha ka dhiganina awaamirtan ilaahay idin farayo iyo ilaahay wuxuu idinka reebayo haddii aad ku dhaqmi weydaan qofku waxay ka dhigan tahay asagoo ku dheeldheelay oo kaleeto war amarka ilaahay qaatoo jees ha ka dhiganina wadkuruu xusa nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa xusuusta calaykum dushiinna oo u nicmeeyey bal ilaahay wuxuu nicmo idin galay islaam buu idinka dhigay intaasoo nicmo idiin sameeyey wamaana xusuusta anzala calaykum ilaahay dushiinna ku soo dejiyey oo min alkitaabi kitaaba iyo walxikmati xikmad ilaahay waa xusa oo xusuusta fadligiisa oo islaamka idinku hanuuniyo oo fadligaas badan buu ilaahay idin siiyey nicmooyin badan buu ilaahay idin galay qur'aankiibuu ilaahay idinku soo dejiyey xikmad buu ilaahay idiin soo dejiyey oo sunnadii dahirsaneed oo qowlkii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka xikmaddu waxa weeye macaani badan ayay xikmaddu ku timaad baa la yidhi wax kasta oo axkaam iyo khayraad badani ku sugan yihiin ayaa xikmadda looga jeedaa xikmadda waxyaabaha lagu fasira waxaa ka mid a mawaacidulqur'aan qur'aanka waanadiisoo dhan wamaa anzala calaykum min alkitaabi waalxikma waa mawcidada weeyaan waxaa kaloo lagu fasiraa alfahmu waalcilm waxaa kaloo lagu fasiraa oo ka mid a waxyaabaha lagu fasiro waxa weeye qaybahaasoo dhan ayaa ka mida baa la yidhaahdaa weeyaan annubuwa ayaa ka mid ah waa annubuwa markaa xikmadaasu ilaahay idiin soo dejiyay iyadana xusuusta iyo nicmada iyo macnaha waxa weeye khayrka ah yacidukum ilaahay wuu idin waaninayaa bihi maagaasuu idinku waaninaya nicmooyinkaa uu idin galay ayuu ilaahay idinku waaninaya wuxuu ilaahay idinku waaninayaa oo idin xusuusinayaa kitaabkiisa iyo hadyiga nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam wattaqu llaha ilaahay ka cabsada waaclamuu ogaada ana allaha ilaahay bikulli shayin shay walbaba caliimun mid ku ogaan badan inuu yahay ilaahay ka cabsada ilaaliya ilaahay acmaashiina ogaada ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka qarsoon oo axwaashiina inaysan jirin huma amara alawliyaa bicadami cadli nisaa alraqabaati fi alcawdati ila aswaajihin aayaddan waidaa dallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna aswaajahuna aayaddaani waxay ka hadlaysaa waxay ku soo degootay saxaabi la yidhaahdo macqal ibnu yasaar ayay ku soo degootay macqal ibnu yasaar gabar walaashiisa buu ku xiray baa la yidhi nin ka mid ah saxaabtii nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam wakhtigii rasuulka gabadhii iyo saxaabigii way isla joogeen intii ilaahay u qadaray huma dallaqahaa tadliiqatan markaasuu maalinkii dambe ayuu saxaabigii gabadhii wuxuu ku furay baa la yidhi wuxuu ku furay hal dalaaqo mana soo ceshanin ilaa ciddadii ay ka dhammaato marka gabadha markaad hal dalaaqa ku furto oo ciddadii dhammaato adoon soo ceshan maxaa la samayn karaa waxaa la samayn karaa nikaax cusub binikaaxin jadiidin nikaax cusub baa shareecadu ay bannaysay oo qur-aankana laga qaatay axaadiista nabiga laga qaatay calayhi salaatu wasalaam fiqhulislaamna sidaas baa ku sugan weeyaan hal dalaaqo hadduu ku furo ama labo maxaa u bannaanay inuu soo ceshado isagoon soo ceshan baa ciddadii baa dhammaatay mana soo ceshanin markaasoo kaleeto dib baa loogu nikaaxinayaa binikaaxin jadiidin marka saxaabigaasu gabadhii ma soo ceshanin ilaa ciddadii ka dhammaato maalinkii dambe ayuu gabadhii ninkii saxaabigii ay jeclaatay dib inuu macnaha u ceshado isagiina sidaasoo kaleeto markaasi waxa weeye ou gabadhii wuu doonay baa layidhi weligeedii buu ka doonay oo saxaabiga la yidhaha macqal binu yasaaro walaalkeedu awalba ku nikaaxasho u yimid markaasuu uri gabadhii iyada ahayd oon halka dalaaqa isku furnay ciddadii way dhammaatee walaalow dib iigu xir buu yidhi haddaan soo heshiinay markaasuu macqal wuu xanaaqay baa layidhi macqal ibnu yasaar wuxuu yidhi yaa lukacu yaa la'iimu lukacu af carabiga waa la'iim war midkaan xunoo walaashay furayow akramtuka bihaa walaashay baan kugu karaameeyey oon ku siiye buu yidhi wasawajtuka waana kuu guuriyey fadallaqtahaa waad furtay wallaahi laa tarjicu ilayka abadan weligaa dambe walaashay dib kugu soo laaban mayso gabadhiina ninkii inuu dib ugu laabtay u baahanta asagiina waa u baahan yihin aayaddan buu ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala gabadha iyo wiilkaa kala tegey hadday dib ayagu isku dalbadaan
oo raadi ay iskugu yihiin oo markaa ay maslaxo iyo wanaag samaynayaan adinkii awliyada ahaa weligii aabbihii ama walaalkii ama adeerkii dadkii ruuxii weliga noqday yousan asagu ku noqonin dhibaato kale oo meeshaa waxa weeye yousan macnaha is-u diidin inuu dib ugu laabto aayaddan buu ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala sababu nusuul baa la yidhaah aayaddu sababtay ku soo degatay weeyaan waa aayadda aanu marayno aayadda 232 baanu maraynaa weeyaan aayadda 232 ee suuratulbaqara wa idaa dallaqtumunnisaa dumarkii haddaad furtaan buu ilaahay yidhi oo fa balaqna ay gaaraan ajalahunna madashoodii ay gaaraan bimacnaa ciddadii baa dhammaatay markaasoo kaleeto falaa tacduluuhunna dumarka ha u diidinina oo ha ka mancinina buu ilaahay leeyahy an yankixna inay guursadaan aswaajahunna zawjaadkoodii dumarka ha u diidinina in ay guursadaan nimankoodii oy dib ugu laabtaan war dadka awliyadooda ahow ha u diidinina hadday axwaasha zawjkiiyo zawjadu hagaagto oo markaa la arko qof walbaaba in uu shallaynayo oo ninku uu leeyahay alla qalad baan walaalay sameeyey waxa weeye mar dambe arrintaa iga dhicin mayso anigaa qaldamay anigaa macnaha waxa weeye qalad kaa galay haddii uu leeyahay oo wixii uu qaladkuu sameeyey uu ka shallaynayo ayaduna ay sidaasoo kaleeto ay uga shallaynayso weeyaan oo mid walbaaba uu raadi ku yahay waxa weeye oo labadooda ka mida alcawda tallaabashada uu raadi ku yahay weeyaan oo midka kaleeto uu raadi uga yahay oo markaa waxa weeye sidaas aad aragtaan qur'aanka ilaahay wuxuu noo sheegayaa in aan la kala mancinin maxaa yeele waxa weeye waxaa sidaa loo sameeyey oo amarkaa macnaha loola yimid baa la yidhi hadda xikmad weyn baa ku sugan sida ilaahay noo sheegi doono subxaanahu wa tacaala wa idaa dallaqtumunnisaa'a dumarkii haddaad furtaan buu ilaahay yidhi oo fa balaqna ay gaaraan ajalahunna madashoodii ajalku waxa weeye ciddadii baa masalan ba dhammaatay falaa tacduluuhunna dumarkaa ha ka reebinina ama ha ka mancinina ama ha u diidinina an yankixna inay guursadaan aswaajahunna zawjaadkoodii macnaha nimankii hore u furay iyo ayaga nikaax jadiida oo cusub inay la yimaadiin ha u diidinina waa goorma idaa taraadow hadday isku raadi noqdaan baynahunna dhexdooda bilmacruufi wanaagna iskaga raadi noqdaan hadday labadoodii ayagu ay wanaag samaynayaan oo raadi arrinka iskaga yihiin sida saxaabigaa macqab binu yasaar la yidhaha oo ayaddu ku soo degootay oo walaashii u diiday saxaabiga kaleeto arrintaa markay dhacday waxa weeye xukunkaas baa la amray weeyaan weliba aayaddaani markay soo degootay baa la yidhi wuxuu yidhi saxaabigii macqal ibnu yasaar la dhihi jiray samcan lirabbii wa daacatan lirabbii wuxuu yidhi rabbigayga waan maqlay qowlkiisoo waan addeecay amarkiisana waan addeeca buu yidhi markaasuu inta saxaabigii u yeeraba wuxuu yidhi uzawijuka wa ukrimuka ayuu yidhi gabadhii haddaan kuu guurinayaa haddaanna ku karaamaynayaa buuri waan qaldamay bal fiiri xukunka ilaahay baa la rabaa inay naftaada iyo hawadaada ka weynaato markii hore wuu xanaaqay weligay dambe walaashii ku sii maaya buu yidhi aayad qur'aana baa ku soo degootay markaasuu wuxuu yidhi arrintii waan ka laabtee samcan lirabbii wa daacatan buu yidhi ilaahay baan maqlay oon addeecay amarkiisa gabadhiina haddaan kuu guurinayaa buuri waa u guuriyey maxaa yeelay qur-aankaa sidaana amraya qur-aanka qofkii ilaahay ka hor yimaadna wuxuu noqonayaa qof ilaahay diintiisa diiday oon islaamka ku jirin buu noqonaya ilahay naga badbaadisho idaa taraadow hadday raadi iskaga noqdaan baynahum dhexdooda bilmacruufi wanaag daalika xukunkaas aanu ka soo sheekaynay yuucadu waxaa lagu waaninayaa bihi xukunkaas man ruux kaana ahaaday huwa manku oo minkum idinka mida yu'minu mid rumaynaya ahaaday billaahi ilaahay iyo walyawmi alaakhiri ruuxa rumaynaya ilaahay iyo maalinta aakhiro xukunkaas baa lagu waaninaya daalikum askaa ismu ishaaradaani xaggay u laabanaysa
waxaan rabaa dhalikum askaa lakum wa adharu ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala dhalikum ay iliticaadu bima dukira wاtamasuku biawaamir illah dhalikum midkiinaas laga soo sheekeeyey ayaa askaa dahir noqosho badan weeyaan oo wa adharu askaa marka la yidhaahdo anmaa wa anfacu midkaas baa macnaha waxtar badan oo nafci badan weeyaan dhalikum midkiinaas ku waana qaadashada qur'aanka lagu waana qaataa ayaa askaa idiin khayr badan oo idiin waxtar badan oo idiin daahir noqosho badan lakum adinka wa adharu asagaa idiin daahir noqosho badanoo dunuubta oo dhan amarka ilaahoo la qaato ayaa layskaga dahiriyaa weeyaan leanna qofku markuu noqdo addoon ilaahay awaamirtiisa ku toosan ilaahay baa dembiga ka dahirinaya wallaahu yaclamu ilaahay wuu og yahay wax walboo la sameeyo iyo wax walboo dan idinkugu jirto wa antum laa taclamuuna laakiin adinku ma ogidiin buu ilaahay leeyahy xataa maslaxadiinna shayga uu ku jiro ma ogidiin amarka ilaahay qaata waxuu idinka reebana ka hara maxaa yeele ilaahay baa wixii dantiinna ah asaga ayaa ka warqaba weeyaan ilaahay axkaamtii nikaaxa iyo dalaaqa iyo ciddada iyo rajcada iyo gabadhii ciddadii rajcadu ay dhammaatay oo nikaaxa jadiidkaa lagu soo ceshanayay haddii loo diido ninkii xukunkeedii oo dhan intaa ilaahay markuu noo soo sheegay aayaddaa nagu soo aadan ilaahay wuxuu uga hadlayaa xukma ridaac macnaha nuugmada ilmaha la nuujiyo xukunkooda ayuu ilaahay noo sheegaya maxaa yeelay dalaaqa yaxsulu bihi alfiraaq waxaa dhici karta ninku inuu zawjadiisa furo oo markaa canug macnaha waxa weeye carruur meesha uu joogo weeyaan markaa canugiyaa nuujinayo oo barbaarinayo oo tarbiyaynayo weeyaan waxaa la arkaa adaacad inay hooyadii markaa dayacdo carruurkii ama ay tidhaa nuujin mayo ayadoo ka aar gudanayso la dagaashan ninkii furay weeyaan oo carruurkii dhibaata ka soo gaarto sidaa daraaddeed ilaahay subxaanahu wa tacaala carruurtii xukunkeeduu noo sheegaya bayana uma caqaba bacda dalika bibayaani xukmi alfiraaq bayna azawjayn bilmowt kabacdi waxaa noo imaan doona oo ilaahay kabacdi nooga hadli doonaa markii waxa weeye furiinku waxaan rabaa masalada la yidhaahdo sadaaqa maharka haddana waxaa laga hadli doonaa baan rabaa sadaaqa intaan laga hadlin gabadhii oo ka dhinto zawjkeeda ciddadeeda haddana maharkaa laga hadli doonaa masaa-ishaas oo dhan baa noo imaan doonta insha allah waalwaalidaatu hooyooyinkii wax dhalay yurdicna ha nuujiyaan owlaadahunna ilmahooda xowlayni 2 sano labadaas sanoo kaamilayni ee dhammaystiran weeyaan 2 sano oo dhammaystiran ilmahoodii ha nuujiyeen buu leeyahay ilmihii ha nuujiyeen 2 sano oo kana wa tacaala ha nuujiyeen ilmihii hooyooyinku 2 sano oo kaamila daalika arrinkaasu liman buu u sugnaaday marka xukunkan 2 sano ah oo ilmihii 2 sano oo kaamila in la nuujiyo xukunka ah daalika xukunkaasi liman ruux buu u sugnaaday araada doonay an yutima aradaacata nuujinta zebankeeda inuu taam yeelo ruuxii arrinkaa doona bay macnaha arrinkaas u sugnaaday wa cala almawluudi lahu midkii wax loo dhalay aabbihii weeye carruurka aabbihiis waxaa waajib ku ah risquhunna dumarkaa risaqooda inay bixiyaan nafaqadooda inay bixiyaan wa kiswatuhunna lebiskoodana ay bixiyaan bilmacruufi si wanaagsan xaalay ku dhaahan yihiin maxaa yeele ayaga ayay macnaha weli ay carruurkii aabbaha aad u ahaad ayay macnaha tarbiyadiisii ay mashquul ku tahay marka waan kala tagna looga hari maayee nafaqadeedii iyo nolosheediiy waa inaad bixisaa weeyaan laa tukallafu la kallifin maayo nafsu naf macnaha ka tacliili limaa qabla weeye ilaa wuscahaa karaankeeda mooyee wax kale lagu kallifin maayo laa tudaara yaan la dhibin buu ilaahay leeyahay waalidatun mid macnaha wax dhashay biwaladihaa bisababi waladihaa waladkeeda sababtiisa yaan loo dhibin walaa mawluudun lahu midkii wax loo dhalanayaan la dhibaataynin biwaladihi bisababi waladihi wa cala alwaarithi midkii wax dhexlayay dushiisa waxaa ahaatay mithlu daalika intaa oo kale fa in araadaa
hadday doonaan buu ilaahay leeyahay macnaha aabbihii iyo hooyadiiba hadday doonaan labadii waalid fisaalan goyn iyo gurin carruurkii naaska laga guriyo fisaalkaasoo can taraadin raadi noqosho xaggeed ka soo fulay taraadigaasoo minhumaa labadooda xaggooda ka ahaaday iyo wa tashaawurin shawr ka soo fulay falaa junaaxa wax dembi ah calayhimaa korkooda ma ahaanin wa in aradtum haddii aad doontaan buu ilaahay leeyahay an tastardicuu inaad nuugma dalabtaan awlaadakum carruurtiinna falaa junaaxa wax dembi ah calaykum dushiinna ma ahaanin idaa sallamtum haddii aad dhiibtaan ood sallimtaan maa shaygii aataytum aad siidaan buu ilaahay yidhi bilmacruufi wanaagna aad ku sallimtaan wattaquu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada anna allaha ilaahay bimaa tacmaluuna shayga aad samaynaysaan basiirun ilaahay mid u jeeda inuu yahay ka warqaba oo sidaa ogaada ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala waalwaalidaatu yurdicna awlaadahunna buu ilaahay yidhi macnaha hooyooyinkii waxaa waajib ku ah ilmahooda inay nuujiyaan 2 sano oo kaamila weeyaan haddii aabbihii iyo hooyadu ay doonaan nuujinta inay taam yeelaan wax ziyaado ah oo 2 sano ka sii badan oo laga rabaana ma jirta weeye marka xowlayn hada taxdiid laysa waajib macnaha qofkii asagu doono taxdiidkan oo in la yidhaha 2 sano lagu qadaro ma ahan taxdiid oo go'an maahan weeyaan waa haddii ayagu ay doonaan liman araada aabbihii iyo hooyadii hadday labadoodu 2 sano in ilmaha la nuujiya ayagu ay doonaan waa inay hooyooyinkii ilmihii nuujiyaan walwaalidaatu kuwii wax dhalay oo hooyooyinkii ummuhaadka ahaa yurdicna ha nuujiyeen waa amar oo kaleeto liyurdicna ay ka dhiganta awlaadahunna ilmahooda xowlayni 2 sano 2 sanoo kaamilayni dhammaystiran oo kaamila weeyaan daalika u soo qadaro arrinkaasu liman qof buu u sugnaaday araada doonay an yutima aradaacata nuugmada inuu taam yeelo zamankeeda wa cala almawluudi lahu marka ruuxa cala almawluudi lahu liajlihi wa bisababihi macnaha waxa weeye maadaama hooyadii la saaray inay carruurkaa nuujido oo haddii la kala tego aan la dhihin ilmiga meelaha lagu tuuro aan la dhihinin hadda waxa weeye waa in la helaa marka ayadiina mas-uuliyaddeedii cid qaada wa cala almawluudi lahu midka wax loo dhalay dushiisa waxa ahaatay waa aabbihii risquhunna ay idcaamu alwaalidaat ayaga risaqoodii dumarka risaqoodii baa ahaatay macnaha dacaamkoodii iyo noloshoodii inuu bixiyo ayaa waajib ku ah weeyaan risaqoodii baa ahaatay iisaalu طacaam alladii huwa risq wa kiswatuhunna lebiskoodii oo nuujinta ilmaha ay nuujinayaan iyo in lagu siiyo nafaqa ay nafaqaystaan iyo lebis ay qaataanba weeyaan arrintaas marka laga hadlaya waa markay mudallaqaad yihiin intaas bay leeyihiin ilaa gabadhan kuguma xirna ilmihii bay nuujinaysaa adigiina waa inaad nafaqadeedii iyo lebiskeedii aad bixiso mana kugu xirna weeyaan mana kugu xirna bilmacruufi si wanaagsan oo macruufana arrinkaa waa in lagu dhiiba buu ilaahay leeyahy si macruufa oo shareecadu ay taqaano waa in lagu dhiiba buu ilaahay leeyahy idaa kuna min almawluudi lahu dalaaqan baa'ina 3 dalaaq uu ku furay maalan waa licadami baqaa'i calqati nikah almuujibati lidalik haddaysan ilmihii nuujinayn oy nuujinta diido waxba uma waajibayaan hadday zawjaad yihiin ama rajciyo ciddatu rajc ay ku jirtaa ama waaba zawjadaadii risaqa iyo kiswadu zawjanimay u qaadanaysaa walahunna ujratu ridaac markaas aadnaan macnaha waxaan rabaa marka aad isqabtiin zawjadu waxay ku dhihi kartaa ilmaha nuujintooda aniga gooni iima saarnee hadda ujro igu siina waa ku dhihi kartaa weeyaan nafaqo iyo biilna awaleyba kugu lehed iyo dharba kugu lahaad nuujintana mushaar bay kaaga qaadan kartaa hadday diidaan nuujinta oo markaa arrinta ay dalbaan weeye waa sidaas baa la yidhaahdaa linafaqa walkiswa ardacna ow lam yurdina wahumaa fi muqaabalati tamkiin
maxaa markaa hadday macnaha makaninta nafteeda ay zawjka makaniday ayayba nafaqada iyo labiska iyo kulli ay macnaha u mutaysteen baa la yidhi weeye laakin ida ishtaqalat izawjatu bilirdac lam yukamil الtamkin wala tamatuc biha faqad yatawahamu ana nafaqata tasqudu xaalat irdac fadafaca hada tawahumu biqowlihi wa cala almawluudi lahu aayaddan waxaa ku sugan daliilun calaa wujuubi nafaqati alwalad cala alwaalid nafaqada waladka waxay waajib ku noqotaa waalidka ayaa laga rabaa weeyaan culummadu waxay isku raaceen annahu yajibu cala alabi nafaqatu awlaadihi aabbaha waxaa wujuub ku ah ilmihiisa biilkooda inuu bixiyo alatfaal aladiina laa maala lahum ee yaryarkaa oon xoola haysanin ayagu xoolo aan lahayn wa cala almawluudi lahu midkii wax loo dhalay dushiisa waxaa ahaatay risquhunna dumarkaa ilmaha nuujinaya risaqooda iyo nafaqadooda inuu bixiyo iyo wa kiswatuhunna labiskoodaba bilmacruufi wanaagna uu ku bixiyo laa tukallafudaan waa ka tacliili limaa qablah macnaha waxa weeye takliif meeshu ma taal wax la iskalifayaa ma jiraan laa tukallafu nafsu naf la kallifin maayo ilaa wuscahaa karaankeeda mooye qofku wuxuusan awoodin shareecadu ma saarayso oo waa maxay nafaqadaas oo bixinayo waa biqadri daaq waa intuu awoodo laa yukallifu lahu nafsan ilaa wuscahaa laa tudaara waalidatun mid wax dhashay laa tudaara waalidatun mid wax dhashay yaan la dhibin weeyaan macnaha yaan la dhibaatayn hooyadii waalidada ahaad biwaladihaa bisababi waladihaa oo markaa la yidhaahdo waxa weeye naahiye laga macneeyo maba la ogolaba macnaha waalidadii in la dhibaateeyo oo dhib loo geysto maba la ogolaba weeyaan ma banaanaba laa tudaaru waalidatun waa la akriyaa weeyaan laa tudaaru waalidatun biwaladihaa mid wax dhashay lama dhibo oo macnaha in la dhibaa ma banaana biwaladihaa bisababi waladihaa waladkeeda sababtiisa in loo dhibaateeyo ma banaano weeyaan laa tudaaru waalidatun waalida yaysan dhibin biwaladihaa waladkeeda yaysan dhibinna waa macnaha iyadana lagu fasiray weeyaan laa tudaara waalidatun mid wax dhashay yaan la dhibin biwaladihaa bisababi waladihaa oo waxaa looga jeedaa baa la yidhi carruurkii inay jeceshaha buu arkay markaas buu iyadii dhibaataynayaa ma la ogola weeyaan ma la ogola waalidadii hooyadii macnaha in la dhibo oo carruurka sababtiisa loo dhibo oo la yidhaha carruurkii baa laga qaadanaya in la yidhaahdo kaleeto iyo kuwaasoo kale ayaa soo gelaya weeyaan in lagu qasbo nuujintiioo kale hadday diido qasab laguma lahan in la dhibo marka lama ogola weeye in la dhibo lama ogola in la dhibaateeyo lama ogola buu macnaha la yidhaahdaa weeye in la dhibaateeyo lama ogola ama in nuujintiioo kale lagu qasbo oo maalan ba sidaasoo kaleeto ayadana lama ogola baa la yidhi haddii la yidhaahdo waxa weeye laadu waa naafiyo ficilku markaa waa marfuuc baa la yidhi hadday naahiye tahayna hadda waa majzuum labada qiraba waa la akriyey oo macnaha waxa weeye fi sabci baa lagu akriye baa la yidhi ra'doo la kordhigo iyadoo la godaba labadaba waa la akriyey labada qiraba waxaan rabaa macnaha laadoo laga dhigo naahiyo oo iyo laadoo laga dhigo naafiyo labadaba waa la akriye baa la yidhi waa laba qiro ama in la yidhaha carruurka dhan baa laga qaadanayaaba taasna dhib bay noqonaysaa iyadana lama ogola walaa mawluudun lahu midkii wax loo dhalay in la dhibaateeyo biwaladihi bisababi waladihi carruurka sababtiisa in loo dhibaateeyo isna lama ogolo wuxuusan awoodin adoogii baa la arkay inuu carruurka aad u jecel yahay markaabaa waxaa dusha laga saarayaa waxyaabo uusan awoodin baa lagu dhibaataynayaa weeyaan ayaa lagu dhibaataynaya iyadana lama ogola laa yaduru lwaalidaani bilwalad fayufarida fi tacahudi wayuqasira fima yanbagii lahu ama midkood inuu mid dhibaato u geysto oo kaleta maalan wa cala alwaarithi midkii wax dhexlayay dushiisa waxaa ahaaday mithlu dalik cala alwaarithi mithlu maa calaa waalidi difli waarisku waxa weeye
aabbaha midkii waarif aabbahu markuu dhinto mas-uuliyadda yaa la wareegaya waxaa la wareegaya masalan waxa weeye awowgii ilaa wuxuu dhaxlayaa maydka ama waxaa la wareegaya walaa wiilkii kaleetoo la dhashay waarifkaa dushiisa waxaa ahaaday intaa hadda waxa weeye nafaqada hooyada la nafaqaynayo xuquuqdeedoo loo qumayo inaan la dhibaatay karinin isagana sidaas baa waajib ku noqonaysa weeye wa cala alwaarithi mithlu dalik fa in araadaa hadday doonaan buu ilaahay leeyahay aabbihii iyo hooyadii fisaalan goyn iyo gurin bay dooneen carruurkii laga guriyo naaska laga guriyo fisaalkaasoo cantaraadin raadi noqosho ka soo fulay minhumaa labadooda ka ahaaday iyo wa tashaawurin shawr waa ka shawreen waa ka wada tashadeen ilaa qof kastaa go-aanku rab iskama qaado kale markaabay waxay ku heshiiyeen in carruurka naaska laga guriyo ama laga gooyo ay ku heshiiyeen baa la yidhi labadii sanana weli lama gaarinba ayagaa laakiin ku heshiiyey in carruurka naaska laga guriyo weeye sidaasay ku heshiiyeen sidaa hadday labadooda ku heshiiyaan oo taraadigaa la helo falaa junaaxa wax dembi ah calayhimaa korkooda ma ahaan wax dembiya uga imaan maysa buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wax dembiya uga imaan mayso macnaha waxa weeye in kaana lahu wailaa ujbirat ilummu calaa irdaacihi majaanan wahada laa yataqayadu bimowti abiih liannahu ida kaana lahu maalu lam tajib cala alabi ujratu ridaac bal takunu caleyh marka labadoodu sidaa hadday ku heshiiyaan wax dembiya uga imaan mayso wa in aradtum buu ilaahay leeyahay khidaabun lilaabaa waa aabbayaalkii gabadhan waad kala tagteen markaabaad waxa weeye waxaadba u baahatayba ilmahan in aad uga nuugma dalabto meel aan hooyadood ahayn macnaha dad kale inay kuu nuujiyaanba ama waadba isqabtiinba liamrin qaama bihina kan araadat ilummu atazawuj ow dalabat fawqa ujrati lmithl wa calaa ummihi irdaacuhu hadda caanaha marka koobaad ay dhasho kow marka hore dambarkaa inay kow nuujido taasi waaba waxaa la yidhi waajibay hooyada ku tahay weeyaan in infaradad hiya ow ajnabiyatan wajaba irdaacuhu saas weeye fa in hadday sidaa damacdana aabbuhu uma diidi karo ilaa in dalabat fawqa ujrati mithlin ow tabaracad ajnabiyatun ow radiyat biaqala minha marka calaa xaasil waxa weeye ilmihii ayaad waxaad doonteen buu ilaahay leeyahay wa in aradtum haddii aad doontaan an tastardicuu inaad u nuugma dalabtaan owlaadakum ilmihiinna meel kale inaad uga nuugma dalabtaan haddii aad doontaan oo gabdho kale aad ujro ku siidaan oo ilmahan idiin nuujiyaan murdicatan liwaladikum hayru lummi bisababin cajzihaa ow iraadatihaa zawaaj nin kale rabtaa inay guursato marka kuwa kalaa siri macnaha ujro ku sii maadaama hooyadii dhashay aad kala tagteen nin kalena iska guursanayso falaa junaaxa wax dembi ah calaykum dushiinna ma ahaani arrinkaas wax dembi ayadana idinka imaan maayo waa goorma idaa sallamtum haddii aad u sallimtaan maa shaygii aataytum bilmacruufi hooyooyinkaas ujraad kula heshiideen soo ma aha ujradii haddii aad macnaha u dhiibtaan buu ilaahay leeyahay dhib ayaduna ma leh waa laydin ogolya laakiin iska dhiiba ujradii aad kula heshiideen ujradii aad kula heshiideen waa inaad dhiibtaan weeyi maa aradtum iitaa'ahu lahunna min alujr bilmacruuf xaal aad wanaag ku dheehan tihiin adinkoo wanaag ku dheehanna aad dhiibtaan oo naftiinu raadi ay sidaa ku tahay weeyi wattaqu llaha ilaahay ka cabsada waclamuu ogaada ana allaha ilaahay bimaa tacmaluuna shayga aad camal falaysaan basiirun mid u jeeda oo taalacanaya ilaahay xaaluu yahay inuu yahay ilaahay ogaada subxaanahu wa tacaala ilaahay ka cabsada ogaada waxa aad samaynaysiinna inuu daalacanayo waxba ka qarsoonayn waaladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan aayaddan waxaa looga hadlayaa ciddatulwafaadka la yidhaahdo gabadha markii ninkeedu oo ka dhinto ciddadeedu waa laba nuuc kale ah kama badato kulligood dumarkao dhan isku soo duuduub kulligood bikulli axwaal xataa haddii caawa lagu xiray oo aysan weli wada kulmin zawjkii oo aysan weligood istaabanin ee markaa uu ka dhinto ciddadeedu maxay noqonaysaa hadday uur leedahay ciddadeedu maxay noqonaysaa hadday tahay gabar aan weligeed baxayd ku dhicin
ciddadeedu maxay noqonaysaa hadday tahay aa'iso ama hooyo weyn oo ka go'day xaydkii ka joogsaday ciddadeedu maxay noqonaysaa ciddatul wafaad baa la yidhahdaa gabadha laga dhinto ciddadeedu waa laba arrimood kale ah sida qur-aanka laga qaatay bilaha 4 bilood iyo 10 habeen inay ku ciddo tirsato waa haddaysan uur lahayn kuwa aan uurka lahayn oo dhan 4 bilood iyo 10 habeen weeyaan ciddadooda kulligood gabadhii iyadoo uur leh oo ka dhinto ninkeeduna ciddadeedu waxa weeye waa wadcul xaml uurkaas inay dejido wa uulaatul axmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna gabdhihii uurka lahaa macnaha madashooda ciddadu waxa weeye waa inay uurkaa dejiyaan buu ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala oo ilmaha ay umusho waaladiina kuwii yutawafawna la oofsanayey minkum xaggiinna xaalay ka ahaadeen oo wayadaruuna ka tegayey adduunyada aswaajan niman uga tegey way dhinteen niman bay adduunyada uga tageen gabadhaa nin bay laheed waana dhimatay yatarabbasna ha sugaan bianfusihinna naftooda ha sugeen macnaha ma dhihi karaan horay baan ka guursanayaa ma odhan karto waa inay horta marka horeeto ay ciddadii u dhammaataa weeyaan waa inay ciddadeedii sugataa yatarabbasna buu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala waaladiina kuwii yutawafawna la oofsanayey oo minkum xaggii yutawafawna la oofsanayo minkum xaggiinna xaalay ka ahaadeen oo wayadaruuna ka tegayeen aswaajan niman yatarabbasna ha sugeen yatarabbasna bimacnaa liyatarabbasna ha sugaan bianfusihinna naftooda iisan guursanin macnaha ha ixdaad ha galaan 4 ashhurin 4 bilood iyo wa 10 habeen intaas bay sugaysaa weeyaan fa idaa balagna hadday gaarhaan ajalahunna ajashoodii hadday gaarhaan oo ciddadaas 4 bilood iyo 10 habeenu hadday dhammaato falaa junaaha calaykum dushiinna ma ahaanin ayuha alawliyaa lilbanaat dadkii gabdhaha mas-uuliyaddoodu saarneed oo waalidkooda ahaayow fii maa facalna wixii ay sameeyaan hadday isbarafuumido ilaa gabadha ku jirta ixdaadka ama ku jirta waxa weeye isbasaasinta ama asayda sida looma ogola inay barafuunka istaabsiido looma ogola weeyaan looma ogola inay dharka aad u qurxan oo bilicda san ay xiratana looma ogola waxyaabaha ixdaadka lagu diiday nuucaa weeyaan dufankaa iyo waxa saliiddaa iyo kullina looma ogola in ay isticmaasho ilaa arrintii ay daruuro iyo dan inay kallifto mooyee oo markaa nafteedii iyo madaxeediiba in naftu dhacday khatar ku gaartayo xanuun iyo dhibaato ay la kulanto markaa daruura la yidhaahdaa addaruuratu tubiixu lmaxduuraat waaladiina kuwii yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna 4 ashhurin wa 10 fa idaa balagna hadday gaarhaan ajalahunna ajashoodii bay gaareen ciddadiiba ajashay gaareen macnaheedu waxa weeye macnaha ciddadoodiibaa u dhammaatay fa idaa balagna hadday gaarhaan ajalahunna falaa junaaxa wax dembi ah ajashoodii hadday gaarhaan falaa junaaxa dembi calayhimaa waxaan rabaa calaykum dusheenna ma ahaanin fii maa facalna wixii ay sameeyaan macnaha waxa weeye fi lidni lahunna bizawaaj wa ficli maa abaaxahunna lahunna abaaxahu lahunna sharc min azina watacarud lilkhudaab inay nimanka aynay macnaha waxa weeye ay la sheekaysan karto oo nin guur ay macnaha kala hadli karto inay isqurxi karto inay isbarafuumi karto kulli waxaasoo dhan dembi uga imaan maayo adinkana dembi idinkaga imaan maayo falaa junaaha calaykum dushiinna dembi ma ahaanin fii maa facalna wixii ay sameeyaan fii anfusihinna naftooda ay ku sameeyaan oo bilmacruufi wanaagna ay kula yimaadiin oo si shareecadu qabta ah ayagoon shareecada ku xadgudbaynin wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna shayga aad camal falaysaan khabiirun waa mid xog ogaal ku ah oo guntiisa hoose iyo baadinkiisa hoose ka warqaba wax aad la imaanaysaan walaa junaaxa calaykum fii maa carabtum bihi min khidbati annisaa aayaddan waxaa looga hadlayaa
gabadhu intay ku jirto sideedaba ciddada intay ku jirto ciddada gabadhu intay ku jirto lama ogola in uu macnaha ciddada intay ku sugan tahay ninku in uu waxa weeye u caddeeyo si sariix ah oo saraaxatan ah oo cad inuu ku yidhaahdo macnaha waxaan doonayaa guur baan kaa doonayaa inuu yidhaahdo maba u bannaanaba waba ka xaaraanba maba u caddayn karo arrinkaas ma bannaana buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala in uu yidhaahdo si cad oo ku yidhaahdo doonis cad inuu macnaha u sheego gabadhii oo arrintaa kala hadla ma bannaana laakiin sarbeeb baa loo ogol yahay waa sarbeeb waxaa loo ogol yahay talmiix macnaha waxa weeye sarbeeb waa loo ogol yahay oo sarbeebtu waxa weeye inuu yidhaahdo innaki jamiila gabar qurxan baa tahay waman yajidu mithlaki adigoo kaleba yaa adduunyada ku arkay wa rubba raaqibin fiiki alla ninku dalbaya badanaa gabar wanaagsan oo ahludiinah ayaan meelaha ka daydayaya waayahan arrimahaasoo kale inuu yidhaahdo sarbeeb baa la yidhaahdaa laakiin waa ku guursanayaa iyo guur baan kaa rabaa ma loo ogola gabadhu intay ku jirto ciddada intay ku sugan tahay weeyaan ciddada intay ku sugan tahay ma la ogola baa layidhi kaliya tacarudkaas baa macnaha la ogolya macnaha waxa weeye xoogay sarbeebta yartaa waa la ogolya lakin wax ka badan lama ogola wax ka badan lama ogola weeyaan sarbeebtaas on baa macnaha laga soo reebay kaliya in ninka loo ogol yahay saxaabiga la yidhaahdo cabdullaahi ibnu cabbaas ilaahay raadiha ka noqdee wuxuu yidhi waxaan anugu jeclaha buu yidhi inuu ninku yidhaahdo ana allaha yasara lii imra'atan saalixatan waaba ninku inuu yidhaahdo wadidtu ana allaha yasara lii imra'atan saalixa waxaan aad u jeclaan lahay ilaahay gabar saalixada inuu siiyo wa ana annisaa'a la min xaajatii haddee dumarkana xaaje ayaan u qabaa marka arrimahaas intaa la eg waxay sarbeeb u tahay ninkaani inuu xoogaa yar damac ku jiro inuu usii ishaaray laakiin hadduu si toosa u yidhaahdo ayadoo ciddadii ku sugan guur baan kaa rabaa waxaad dhici karta naf iyo shaydaan in ay lumiyaanoo ciddadiiyoon dhammaanin ay markaa tidhaahdo haye haddaba anigu diyaar baan hay aan guur samayno marka ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala walaa junaaxa dembi calaykum dushiina ma ahaanin nimanow fii maa shaygii carradtum aad ugu sarbeebteen bihi maaga shaygii aad ku sarbeebteen sarbeeb wixii sarbeeb ah oo aan saraaxatan ahayn dembi idinkaga imaan maayo oo min khidbati nisaa'i dumarka doonistoodii ah dumarkii nimankoodu ay ka dhinteen baa looga jeeda dumarkii nimanku ay ka dhinteen waxaa lamida gabdhihii la furay oo dalaaq baa-ina gabadhii 3 dalaaqa lagu furay inaan ku guursadaan rabaa ciddadu intiisa u dhammaan lama dhihi karo amaa gabadha ciddatu rajca ku sugan ayada lama ogola atacriid waatasriix bikhidbatihinna baa la yidhi xataa lama dhihi karo looma sarsarbeebi karo hadda meeshaa maxaa ku baxay maanta waxaad arkaysaa ama in badan aad maqlaysaa markaad gadaal usii raacdo dadku waxay samaynayaan gabar la qabo oo zawjkeedii ou qabo nin odhanaya waa shukaansadaa gabadhaabuu shukaansadaa oo see ku shukaansadaa iyo ayadii nafteedii odhanaysa niman bay la sheekaystaa lagu leeyahay weeyaan waa dembi cad xataa sarbeeb iska dhaafe taa bilkuliyan ayagu dunuub bay ku jiraan bal midii lagu furay 1 dalaaqo ama 2 dalaaqo lagu furay oo ciddatu rajca ku sugneed ayaan xataa la ogolayn xoogaa yar kor in looga sarsarbeebo oo la yidhaahdo alla ninku dalbaya badanaa adigoo kale dumarka lagama helo xataa taa lama dhihi karo kaliya midaan lagu leeyahay sarbeeb kaliyaha lagula hadli karaa waxa weeye waa gabadhii dalaaqiidu oo ahay baa-inka oo 3 dalaaqa lagu furo ciddada ku sugneed ama laga dhintay oo ciddada ku sugneed weeyaan walaa junaaxa dembi ma ahaanin calaykum dusheena fii maa shaygii carradtum aad ugu sarbeebtaan bihi maaga oo min khidbati nisaa'i dumarka doonistooda ah oo aknantum ama aad qarisaan fii anfusikum naftiina aad ku qarisaan waad ku sarbeebteen ama qalbiga aadba ku qarsatayo
waxa weeye inaad xogay doonisteeda aad jeceshahay qalbi kaaga jirta laakiin afka ma dhihin taa dambi male calima allahu ilaahay wuu ogaaday annakum adinku satadkuruunahunna inaad sheegaysid ilaahay waa idinka warqaba qalbigaa waxa ku jira oo gabadha inaad raji kaaga jirtaa ilaahay baaba ku daalacanayaba walaakin laa tuwaaciduuhunna dumarkaas ha kula ballaminina oo ha u yaboohinina nikaaxaasoo siran buu ilaahay leeyahy nikaaxan uu soo qadaro ha kula ballaminina siran macnaha qarsoodi ha kula macnaha ballaminina weeyaan oo nikaaxa macnaha waxa weeye siranta waxaa looga jeedaa waxa weeye ay nikaaxan baa layidhi nikaaxa kula ballaminina nikaaxan caqdan siran waxaa loogu magacaabay baa la yidhi hadda nikaaxu waxa weeye sababtiis markuu nikaaxi yimaado waxyaaba labadooda u sira oon cid la og la arkin ayaa zawjka iyo zawjada macnaha dhex mara marka siranta nikaax baa looga jeeda walaakin laa tuwaaciduuhunna gabdhihii ha u yaboohinina laga dhinto ciddada ku sugnaa ama saddexda dalaaqa lagu furo ciddada ku sugnaa siran ay nikaaxan nikaaxa ha kula ballaminina oo ha dhihinina nikaaxaaga ayaan anigu doonaya ilaa an taquuluu inaad ku qawshaan mooye qowlan qowlkaasoo macruufan shareecada macruufka ahoo wanaagsan oo shareecada lagu yaqaan qowlkaasu muxuu yahay rubba raaqibin waa ti aan soo maraynay waa sarbeebtii ninku dalbayo badanaa adigoo kale yaaba heli kara qof ahludiina baata walaa taczimuu ha go'aaminina cuqdatan nikaaxi nikaaxa guntidiisa ha go'aaminina oo gabadhaa laga dhinto ciddada ku sugan iyo macnaha waxa weeye ninka doonaya lala hadlayaahe ha oranin nikaax baan rabaa inaan galno oo aan macnaha isguursanno oo nikaax aan gunudno taa marna ha u go'aaminin xataa yabluqa alkitaabu ilaa kitaabkii ilaahay xadeeyey oo ka gaaro ajashahu madashiisii kitaabkaasi waa maxay waa ciddadii ilaa ay ka dhammaato ha u caddayn oo ha u go'aamin nikaax inaad wada geli doontaan laakiin maalinkii ciddadeedu ay dhammaato waa dhihi kartaa aniga guur baan doonayaa waclamuu ogaada ana allaha ilaahay yaclamu inuu ogsoon yahay maa fii anfusikum naftiinna waxa ku sugan ilaahay inuu ogsoon yahay ogaada faxdaruuhu ilaahay ka digtoonaada war cadaabta ilaahay cadaabta ilaahay iska ilaaliy cadaabta ilaahay iska ilaaliy ogaada ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ogsoon yahay naftiinna wixii ku sugan faxdaruuhu ilaahay ka digtoonaada oo cadaabtiisa iska ilaaliy waclamuu ogaada ana allaha ilaahay qafuurun mid dembi dhaafid badan inuu yahay xaliimun oo dulqaad badan ilaahay inuu yahay qafuururaxiim oo dulqaad badan yahay taana ogaada buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala aayaddan laa junaaxa calaykum in dallaqtum nnisaa laa junaaxa wax dembi ah calaykum dushiinna ma ahaanin in dallaqtum nnisaa dumarkii haddii aad furtaan maa lam tamassuuhunna haddii aydnan taabanin ow tafriduu lahunna ama aadnan u qadarin fariidatan macnaha fariidatan mafruudatan mid la farad yeelo oo la waajibiyey haddaadnan u qadarin wax dembiya dushiinna ma ahaanin buu ilaahay leeyahy wamaticuuhunna gabdhaha jiscin siiyo u raaxeeyo wax ay macnaha ku jid maraan oo mataac iyo alaab fiican iyo lacag iyo wax ay ka dhigtaan jiscin fiixanoo naftoodu ay noloshooda ugu raaxeeyaan siiya calal muusici midkii waasic midkii qaniga ahaa oo waxhaystay dushiisa waxaa waajib ku ah qadruhu wa calal muqtiri midkii faqiirka ahaana dushiisa waxaa ahaaday qadruhu asaga qadarkiisa mid walba intuu awoodo weeyaan calal muusici qadruhu ayaa ahaatay weey qadruhu qadru imkaanihi muusica wuxuu awoodo oo awooddiisu la-eg tahay ayaa dushiisa ahaata buu ilaahay leeyahy mataacan macnaha waxa weeye gabdhahaas siiya waxa weeye shay ay ka dhigtaan naftooda iyo noloshooda ay ku raaxaystaan oo nolol ah mataacan raaxaysiin mataacaasoo bilmacruufi si wanaagsan oo shareecadu qabto
ahaaday weeyaan. xaqan arrinkaasi wou sugnaaday xaqan sugnaasho cala almuxsiniina kuwa wanaagga sameeya oo muxsiniinta ah ayuu ama macnaha mataacaasoo xaqan ahaaday mid sugan oo xaq ah cala almuxsiniina macnaha waxaa looga jeedaa xaqa daalika arrinkaasi wou sugnaaday xaqan sugnaasho cala almuxsiniina kuwa wanaagga sameeya oo diinta ilaahay ku dhaqmaya ayuu macnaha waxa weeye oo dushooda ku sugnaaday. ilaahay wuxuu korna leeyahay wa in dallaqtum aayadan intaanan tan kale u gudbin laa junaha calaykum aayaddaani maxay ka hadlaysaa? macnaha nimanka dembi uga iman mayo dumarkii haddii ay furaan qabla almasiis wa qabla an tafriduu lahunna mahran. gabadhaani waxay ahayd masalanba waa la furay weeyaan, furiin baa yimid laakiin gabadhaa marka la furayo furiinkeedu wuxuu ahaay waa mufawada ayaa la yidhahdaa. mufawida waa gabar rashiida ahoo baaliqo ahoo hagaagsaneed oo toosneed oo weligeedii ku tiri markii la xirayay zawijni iguuri bilaa mahrin, ayadoon wax mahara aanan rabin igu xirnin bay tiri. markaasuu mahar nin ku xiro wuxuu yidhi mahar lagaama rabo waana kugu xiray buu yidhi zawajtuka bilaa mahrin. zawjkiina uma macnaha qadarinin wax mahara uma qadarin baa la yidhi, uma uusan qadarin weeyaan. zawjkiina wax mahara uma uusan qadarin baa la yidhi. saasaa macnaha marka waxaa la yidhi gabadhaas wax maharo ninkii ayadii isma aysan taaban, waa laysku xiray, isma aysan taabanin, wax mahara looma qadarin, marka hore looma magacaabin, ninkiina kabacdi uma qadarin. gabadhaasu sideeda mahar ma leedahay markii la furo, shareecada maya mahar male, laakin waxay leedahay mutco waxa la yidhahdo mutco waajibaha bay leedahay. mutcadaasu wamaticuuhunna waa midda ilaahay noo caddeeyey. taqdiirkeedana xaakimka ama qaadiga qadaraya, qofkii faqiirana qadarkiisu ka qaadaya, qofkii wax haysto oo maalqabeenana wuxuu awoodo ayaa lagu qadarayaa weeyaan. waxaa la yidhi sayidina xasan binu cali baa la yidhi sawjadiisii ayuu 10,000 oo macnaha waxa weeye dirham ayuu mutca u siiyey. markaasay tidhi mataacun qaliilun min xabiibin mufaariqin baa la yidhi, waa alaab yaroo nin macnaha waxa weeye aan jeclaa oon kala tagnay ayaa macnaha waxa weeye arrintan macnaha ay ka timid bay tiri xaggiisa. wuxuuna sidaa u sameeye baa la yidhi oo macnaha saxaabigaanu sidaa u sameeyey gabadha u furay sayidina cali markii la dilay karamallahu wajah oo sayidina xasan bin cali bin abi daalib khilaafadii asaga lagula mubaayacooday ayay waxay ku tiri baa la yidhi litahnika alkhilaafatu ya amiira almu'miniin, waxaan kuugu tahaniyeynayaa madaxweyne maanta inaad noqotay adigoo zawjkayga ah. markaasu wuxuu yidhi yuqtalu caliyun wa tadhariina shamaatata, ma inta aabbahay sayidina cali la dilay ayaad haddana ku faraxsan taha buu yidhi. idhabii fa anti daaliqun 3, iska bax buu yidhi 3 dalaaqaad iga furan tahay. markaasay jilbaabkeedii iyo asturaaddeedii bay xiratay baa la yidhi, way fadhiisatoo ciddadii ilaa ay ka dhammaanaysay guriga joogtay. maalinkii dambe wuxuu usoo diray baa la yidhi 10,000 oo dirham oo macnaha mutcada hadda aan maraynaa. iyo waxaa la yidhi wa baqiyatan ma baqiya lahaa min sadaaqiha, maharkeedii wixii ka harayna waa usoo diray. markaasay waxa weeye ayadii nin baa loo soo diray, marka alaabtii maharkiiyaa loo soo dhiibay mutcadii. markuu arrintii u sheegay ayay booyday. markaasu macnaha waxaan rabaa markii alaabtii loo keenay iyo maharkii ay waxay tiri baa la yidhi mataacun qaliilun, waa alaab yar iyo lacag yar oo min xabiibin mufaariqin, xabiib macnaha ifaaruqay oo ii soo dhiibay, aad bay u jecleed sayidina xasan bin cali bin abi daalib. arrintii markii loo sheego asaga ninkii uu alaabta u dhiibay u sheegay ayuu booyey sayidina xasan. markaasuu wuxuu yidhi lowlaa annii dallaqtuhaa 3 la raajactuhaa buu yidhi,
haddaanan gabadhaa 3 dalaaqo ku furi lahayn maanta waxa uu yidhi waa soo cesho lahay laakiin 3 dalaaqo mar haddii gabadha lagu furo meel dambe oo laga soo ceshada male marka mutcadu waxay u waajibtaa gabadhii iyadoo aan ninku taabanin oo maalan ay kala tageen maharna aan loo qadarin ilaahay wuxuuna leeyahay laa junaaxa wax dembi ah calaykum dusheena ma ahaanin in dallaqtumun nisaa dumarkii haddii aad furtaan oo maa lam tamassuuhunna haddii aydnan taabanin oo tafriduu lahunna ama aadnan u qadarin fariidatan macnaha fariidadu waa maharna uma adnaan qadarin mar adnaan taabanin nikaax oon baa idin dhex maray markaas baad kala tagteen weeyaan waad kala tagteen maxaa markaa waajib noqonaya weeye wamaticuuhunna bimacnaa acduuhunna maa yatamatacna bih u raaxeeyo oo waxay ka dhigtaan waxa weeye haddaa sidaa lagu kala tago mutca waxa la yidhaha baa la siinaya weya mutca waa waajib cala almuusici ruuxii qaniga ahaa dushiisa waxaa ahaaday qadruhu qadarkiisa macnaha qadruhu qadru imkaanihi intuu awoodo wa cala almuqtiri ruuxii faqiirka ahaa dushiisana waxaa ahaaday oo waxa weeye addayiqu risqa lagu ciriiriyey qadruhu baa asna ahaaday oo asagana waxa weeye dushiisa waxaa ahaaday baa la yidhi ruuxii waxa weeye muqtirida waxaa looga jeedaa waa ruuxii faqiirka ahay weeyaan waa ruuxii faqiirka ahaa marka mid walba oo labadoodaa kamida qadarkiisiibaa dushiisa ahaada buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wamaticuuhunna cala almuusici midkii qaniga ahaa dushiisa waxaa ahaaday qadruhu qadarkiisii macnaha qaniga ama muusica qadarkii isagu ou awooday wa cala almuqtiri midkii faqiirka ahaana dushiisa waxaa ahaaday qadruhu ay qadru imkaanihi waa wixii isagu u awooday weeyaan mid walbaa wixii asaga suuragal u ah ou awoodo ayaa ahaatay buu ilaahay leeyahy zawjada qadarkeeda la fiirin maayo isaga intuu awoodaa la fiirinaya laakin hada daciifun fi madhab shaaficiy wa yanduru alxaakimu biijtihaadihi xaakimkaa fiirinaya xaalkooda sida adharu lwujuh wujuhda ugu raajixsan noocaas weeyaan ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala wamaticuuhunna cala almuusici qadruhu wa cala almuqtiri qadruhu u raaxeeyo oo macnaha mutca siiya mataacan raaxayn mataacaasoo bilmacruuf oo tamtiic bilmacruuf sida shareecadu ay qabto oo macruufka ah ayaa lagu soconayaa weeyaan mudca siiya sababta mudcadaa loo siinaa waxa weeye qalbi jab ayaa macnaha qalbigeeda waxaa la yidhaahdaa jabran likhaadiriha qalbigeedaa la kabayaa weeye maxaa yeele gabadhii iyadoon weli lala kulmin ninka lagu xiray hadday kala tagaan markaa qalbigeedii waxaa ku soo daadegaya oo sababta lagu furay waa maxay marka calaa qadri xaali rajuli fi lqinaa walfaqri baa loo fiiriya ruuxa muusirkaana wuxuu dhiibayaa biqadri yasaarihi faqiirkuna wuxuu dhiibayaa intuu awoodo arrinkaasuna waxa weeye mataacan bilmacruuf xaqan mataacaasoo xaqan sugnaaday buu ilaahay leeyahy ama xaqa daalika arrinkaas wuu sugnaaday xaqan sugnaasho cala almuxsiniina kuwa wanaagga sameeya korkooda ku sugnaaday buu ilahay leeyahy subxaanahu wa tacaala wain dallaqtumuuhunna min qabli an tamassuuhunna wain dallaqtumuuhunna haddii aad dumarkii furtaan buu ilaahay yidhi min qabli an tamassuuhunna intaadnan taabanin ka hor baad furteen walxaal qad faradtum aad u qadarteen lahunna ayaga fariidatan macnaha mahar baad u qadarteen gabadhii iyadoo mahar loo magacaabay laakiin ninkiiyo gabadhii aan weli kulminin ayay kala tageen masalanba maxay markaa leeyihiin maharku intuu noqonayaa markaas fa calayhi ninka dushiisa waxaa ahaaday fa nisu maa faradtum wixii aad u qadarteen barkeed oo mahara ayay leeyihiin barka kaleeta ninka usoo laabanaya ilaa an yacfuuna inay iska cafiyaan mooye ilaa an yacfuuna inay dumarkii cafiyaan mooye oo markaa ayagiibaa cafi sameeyo waxay dhaheen xaqeedii bay ridday ama weliyu amrihaabaa xaqii ridday gabar yar hadday tahay weeyi
ayadu inay iska saamaxdo oo maharkeedii ay asaga siido u cafida mooye ow yacfuwa alladii ama kii inuu cafiyo mooye biyadihi gacantiisa ay ku jirtay cuqdatu nikaaxi nikaaxa xiridiis ama ninkii nikaaxan guntay oo aas-aasay asagu inuu cafiyo mooye ama ninku inuu cafiyo oo niska kale asaga oo ugu daro ama iyadiibaa niskeedii markii ay lahayd cafiday ama asagiibaa cafiyey saasaa looga jeeda ow yacfuwa alladii ama kii inuu cafiyo mooye biyadihi gacantiisa ay ku sugnaatay cuqdatu nikaaxi nikaaxa gunudiis waa ninkii ilaahay wuxuuna leeyahay subxaanahu wa tacaala wa an tacfuu buu ilaahay yidhi inaad macnaha cafisaan ayaa aqrabu bal fiiri wa an tacfuu inaad cafisaan buu ilaahay leeyahay hadda waxaa la yidhi tacfuudaanu nimanka hadda loogu talagalay laakiin dumarkii xataa waa ku jiraan qolo walbaahuba inay cafi samaydo oo ay kan kale xaq u cafido ayaa ninka iyo gabadhaba u fiican laakiin haddii la xisaabtamoo la yidhaahdo koob shahan maalin kuu gadaye oo aadan xaq igu lahayne ii soo meg hadday arrintu tagto taasoo kaleeto waa ceeb weeyaan wa an tacfuu inaad cafisaan buu ilaahay yidhi ayaa aqrabu dhowaansho badan litaqwaa cabsida ilaahay taasaa u dhowaan badan inaad cafisaan taasaa cabsida ilaahay u dhow oo haddii ay gabadhaani maharka kala bar leedahay masalanba $1,000 buu ahaa maharkana waa la magacaabay waa lagu xiray gabadhan wa in dallaqtumuuhunna min qabli an tamassuuhunna baa dhacday adoon taaban oon la kulmin baad kala tagteen waqad faradtum lahunna fariidatan meeqay kugu leedahay $500 laakiin waxaa ka fiican inaad u cafido kulli ugu darto ood kunkeediiba siido weeyaan ayadana waxaa u fiican hadday qaadanayso ajirka badan inay iska cafido oy tiraa waxba kaama rabo hadday suuragal macnaha ay khayrka iyadu doonayso qasab maaha qolo walba xaqa waxay u leedahay waa loo sheegay laakiin sidaana ku khayr badan baa haddana lagu leeyahay fiiri wa an tacfuu inaad cafisaan baa aqrabu u dhowaan badan litaqwaa cabsida ilaahay taasaa u dhowaan badan walaa tansawu lfadla fadliga ha halmaaminina fadligaasoo baynakum dhexdiinna ahaaday war mu'miniinay ha halmaaminina aljamiil waalixsaan baynakum wanaaggii dhexdiinna soo maray maalinkii la isjeclaa wanaaggii iyo raxmaddii iyo waxa weeye khayraadkii gabadhaa iyo wiilkaa dhex maray yaan la halmaamin maanta haddii la kala tegey waa adduunyo marka wanaagga ayaa ka wanaagsan in gadaal loo fiiriyo walaa tansawu lfadla baynakum fadliga dhexdiinna ahaaday ha halmaaminina buu ilahay lehy subxaanahu wa tacaala ina allaha ilaahay bimaa tacmaluuna shayga aad camal falaysaan basiirun ilaahay waa mid u jeeda waxaad camal falaysaan ilaahay baa u jeeda subxaanahu wa tacaala ilaahay waa u jeedaa waxa aad samaynaysaan hadaad xumaato samaydo hadaad ilaahay ka baqdo sida aad yeelayso ilaahay baa idin daalacanayee wanaagga ha halmaaminina darsigeenna tafsiirka qur'aanka aayadda 237 ayaanu caawa ku joojinaynaa ilaahay ha nagu anfaco qur-aanka kariimka kuwa ku camal fala allaha naga dhigo aayaadkiisa iyo axkaamtiisaba ku toosnaada darsigeenna caawa intaasaan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh